kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada shabakada codka Tolmoon. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa furay dood ballaaran kadib khudbadiisii ku saabsanayd Islaamka Faransiiska usbuucii la soo dhaafay. doodaas oo uu ku sheegay in Islaamku yahay diin maanta ay dhibaato ka taagan tahay meel kasta oo adduunka. khudbadiisa Macron waxa uu ku dhawaaqay qorshe uu kula dagaalamayo janjeeridda gooni-u-goosadka iyo in laga hortago adeegsiga diinta ee su'aalgelinta qiyamka Jamhuuriyadda Faransiiska. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka jawaabay hadallada Macron ayaa sheegay in hadalladiisu ahaayeen dandaansi qaawan iyo anshax xumo. murankani waxa uu ka soo horjeedaa asalka khilaafaadka siyaasadeed ee labada dal, laakiin waxa ay haleeleen dhandhandiimeed sida ay khubaradu sheegeen. faylka Liibiya ayaa ah meesha ugu caansan ee isku hayaan Macron iyo Erdogan maadaama Ankara ay taageertay dowladda caalamku aqoonsan yahay, halka mowqifka Faransiisku uu janjeero inuu taageero taliyihii militariga Liibiya Khalifa Haftar. xiisadda ayaa sidoo kale korodhay bilihii la soo dhaafay kadib murankii bariga Mediterranean-ka ee u Turkiga iyo Greega oo ku saabsan faylka sahaminta gaaska. sidaas daraadeed Faransiisku waxa uu ku dhawaaqay inuu u dirayo gobolka ciidamo xoojin ah oo taageeraya Greega. kormeerayaashu waxay aaminsan yihiin in Macron iyo Erdogan ay adeegsanayaan hadallo diimeed si ay uga adeegaan yoolalkooda siyaasadeed. tani kuma cusba dhinaca Erdogan maadaama hogaamiyaha xisbiga cadaaladda iyo horumarku uu doonayo inuu door hogaamineed ka ciyaaro dunida Islaamka, ha ahaato inuu taageero hirdanka Islaamka ee ka jira dunida carabta ama inuu ku shukaansado dareenka malaayiin muslimiina. tallaabadii loogu bedelay Hagia Sophia Masjid bishii Julaay ee la soo dhaafay waxay ku timid xaaladan. mowqifka Turkiga ayaana dhaliyay dhaleecayn caalami ah. dhinaca Macron qaybta diintu waxa ay ku cusub tahay siyaasadiisa, laakiin waxa ay ku soo beegmaysaa waqti xasaasi ah iyadoo la sugayo doorashada madaxtinimada Faransiiska ee sanadka dambe, isagoo bilaabay ololihiisa ka dhanka gooni-u-goosadka Islaamka sida uu ugu yeedhay. Faransiisku waxa uu doonayaa inuu door hogaamineed ka ciyaaro midowda Yurub, isla markaasna waxa dhulkiisa ka jira tirada ugu badan ee muwaadiniinta muslimiinta ee ku nool qaaradii hore ee Yurub. si kastaba ha noqotee, dhaxalkii gumaysiga laga soo bilaabo ololihii Napoleon ilaa Masar ilaa qabsashadii Algeria waxa ay leedahay xasuus tiro badan oo ku saabsan rabshadaha loo geysto muslimiinta. dhinaca kale, dooda ku saabsan xiriirka Turkigu la leeyahay midowda Yurub ayaa had iyo jeer lagu xambaaraa cabiro bulsheed iyo mid diimeed, waxaana ka mid ah su'aasha ah xiriirka Yurub ay la leedahay Islaamka iyo xiriirka Islaamka ee calmaaniyadda iyo casriga. waxyaabaha sii xumeynaya xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Yurub waxaa ka mid ah hadallada qaar ka mid ah hogaamiyayaasha Yurub oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy oo ku saabsan suurtagalnimada in dal 80 milyan oo muslimiin ahi ku jiro midowga. suxufiga iyo mufakirka Faransiiska ee Alain Gresh ayaa BBC-da u sheegay in kala duwanaanshaha u dhexeeya Macron iyo Erdogan uusan dhab ahaan ka turjumayn isku dhac diimeed, laakiin uu yahay adeegsiga hadallada diimeed ee hogaamiyayaasha siyaasadda ee isku dhacyada ka abuurmay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed. waxaa la aaminsan yahay in diintu aanay door muhiima ku lahayn siyaasadda Turkiga, laakiin waxaa loo adeegsadaa tahay in lagu muujiyo aqoonsi dhaqan.